madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta hay'adaha deeq-bixiyayaasha ah ee ka howlgala gudaha deegaanka. Kulankani waa ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah maamulka deegaanka ay ujeedadiisu ahayd dhageysiga iyo wada xaajood la xiriira shaqooyinka gargaarka bini'aadamtinimo ee ay ka hayaan deegaanka. waxyaabaha laga qabtay barakacayaasha qoloji waxa uu dhiman nafaqa xumada ku dhacdo hooyooyinka iyo dhallaanka ayaana inta badan kulankani xoogga lagu saarayay sidii xal waara loogu heli lahaa. talabixinooyinka la soo bandhigayay waxa ka mid ahaa qaabkii loo sameyn lahaa abaabul bulsho dhinaca tabcashada beeraha ah maadaama kheyraadyo badan oo wabiyadu ugu horeeyaan ay maraan deegaanka muhiimna ay tahay in bulshadu isku filaansho nololeed ay gaadhaan. mas'uuliyiinta ka socotay hay'adahan dawliga ahayn qaarkood oo bogaadiyay amniga buuxa ee ka jira deegaanka Soomaalida ayaa geesta kalena sheegay inay kaalin weyn ka qaadan doonaan nafaqa xumada ka jirta goobo ka mid ah deegaanka iyo sidoo kale gargaarka bini'aadamtinimo. madaxweynaha ayaa kula dardaarmay in hay'adaha deeq-bixiyayaashu ay qayb ka noqdaan dadaalada horumarineed ee ay xukuumaddu wado maadaama dhaqaalaha dawladdu uusan saamaxaynin in baahiyaha jiro oo dhan lagu daboolo. wasiirka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka ee dowladdeegaanka Soomaalida Dr. Cabdifataax Sheekh Bixi ayaana warbixin dheeraad ah naga siiyay kulankani. ajandaha ugu weyn ee laga wada hadlayay wuxuu ahaa in xaaladda deegaanka jirta loo kala xog qaato. waxaa intaa wehelisa si guud xogta la kala qaadanayo oo amaha ku saabsanaato xaaladda barakacayaasha iyo wixii laga qabtay iyo waxa dhiman amaha ku saabsanaato xaaladda daadadka abaarihii hore waxaa si gaara la isu dultaagay arrinta dadka xaaladda nafaqada siiba ta caruurta iyo hooyooyinka marka hay'adihii arrimahaas qaabilsanaa oo UNICEF iyo WFP ay ka mid yihiin xog baa laga dhageystay talooyina waa la siiyey. marka waxaa ka soo baxay si guud gabagabadii 3 qodob oo ah in xiriirka hay'adaha iyo dawladda la sii xoojiyo talooyin isla shirku ka qaybgalayaashiisa ay soo jeediyeen sidii xiriirka loo xoojin lahaa. waxaa kale oo ka soo baxay in la diyaariyo maadaama bishii 7 ee July ay maanta kow tahay lagana yaabo maadaama deegaanka ay abaaro ku soo noqnoqdeen inuu roobku yaraado meelaha qaarkood sidii looga gaashaaman lahaa in roobkaas roob yaraantaasi aynan abaar isugu bedelin oo macnaha si ka duwan sidii hore ee markay dhibaato dhacdo loo kala yaayaci jiray in hadda intayna dhibaatadu dhicin laga sii gaashaanto. taana waa qodob kale oo shirka ka soo baxay. waxaa kale oo madaxweynuhu ballan qaaday maadaama gargaarkii bini'aadminimo ee Itoobiya guud ahaan loo qoondeyn jiray intii sii badnayd 70% wax ka badan deegaanka Tigray loo waciyay. hay'aduhu waxay ka halaalayeen wixii ay dadka u qorsheeyeen ama waxa kadib ay qaban doonaan inay caqabad ka haysato dhinaca maaliyadda ama dhaqaalihii ay waxa ku fulin lahayn maadaama intii ugu badnayd 72% iyo ka badan xagga Tigrayga loo waciyay. sidaa darteed maadaama baahidaas ay jirto inuu madaxweynuhu dadka deeqda bixiya kala hadli doono oo already haddaba warqad si toos isagu ugu diro oo xukuumad ahaan culays aan ku saarno in halkan laftigeeda ay mudnaan siiyaan taana ballan qaaday. markaa 3 qodob baa ugu muhiimsanaa wixii shirka soo baxay.